شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله. بسم الله وكفى. السلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin dacalada adduunka meel kasto aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahinta ku bahawday Southern Media Cooperation iyo teamka jugta culus oo alaaba idii soo gudbiya xaqiiqooyinkii ugu dambeeyay ee xaaladaha geeska isla markaana u dooda dadka dulman sida tooska ay sida macnaheed dadban loo dulmiyo oo dhan walaalayaal waxaanu diiradda saari doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo dagaal ayaa ka dhacay dagaalo ayaa ka dhacayay maalmihii ugu dambeysay shalay tuulada loo yaqaano tuulo xanan ee ku taalla macnaheed gudaha Soomaali galbeed ama kililka shanaad ee Itoobiya kaasoo ay ku dagaalameen beesha Axmed Madoobe iyo beesha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo laakiin dagaalkaasi tuulo xanan ka dhacay cidda soo qaaday iyo wixii qaabkii uu u dhacay baan rabnaa inaan wax yar aan idin sharaxno war gardaroole weligii ma guulaysto oo fiirso nuucuu doono ha noqdo annagu labada beeloodba waa laba beelood oo annaga nagu soo duushay marka xaqiiqda loo hadlo haddaan nahay jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland oo dhulka iyaga ku soo duushay laakiin hadde warbaahin baan nahay dhacdada siday u dhacday baan sheegaynaa walaalayaal dawladnimadan in la isku dulmiyo ayaan idin sheegaynaa qoliyaha farmaajo ku beesha ah ee jufada ku beesha ah inta ay dhaqaaqeen oo xuduudda ka tallaabeen qaarkood waxay weerar ku qaadeen tuulada macnaheed tuulo xanan loo yaqaano oo ma arkayse beesha Axmed Madoobe ay degan tahay gudaha Itoobiya markii ay qalabka qaadeen nimankan farmaajo ku beesha ay galeen meeshaas iyada ah markay soo socdeen waa loo jeeday waa la socday waxa loo baneeyay aagii oo dhan baa loo baneeyay way ku qulquleen dhammaantood markay wada galeen dabinka ayaa afar dhaban la geliyay dhafoorada laga wada toogtay dhafoorada tuulo xanan waxay noqotay maalintii shalay ahayd wada mayd beesh farmaajo ah anu lama yaabayo lama beelo isdagaashay waxaan la yaabayo ma laakiin waxaan la yaabayaa macnii qaybta 12aad oo dhuusamareeb degan oo dawladda Soomaaliya macnii cashuurtii qaranka iyo magacii Soomaaliyeed lagu biilo ayay soo kaxaysteen beesha farmaajo isla tabtii markii ma arkaysa caabudu waaq iyo gelisoor ay isdagaalaysay oo kale oo villa Soomaaliya laga raray rasaasta iyo hubka oo ciyaar jecel ay ka dajiyeen caabudu waaq oo Itoobiya macnaheed gacan loo weydiistay dad Soomaaliya in lagu gumaado tabtii bay sameeyeen laakiin iyagoo beel ahaan u abaabulan iyagoo qaranka Soomaaliyeed isticmaalay qaybta 12aad ciidamadii qaranka federaalka Soomaaliyeed xitaa xuduudda inta laga tallaabiyay si loogu dilo beesha Axmed Madoobe natiijadii ka dhalatay waxay noqotay in waxba aan ka soo fiigin wixii meesha galay af xanan tuuladaasi wixii galay ee macnaheed Soomaalida Itoobiya wixii galay oo xuduudda laga tallaabiyay beesha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xabadna inaan ka boodin taa macnaheedu wuxuu yahay marka walaalayaal nimankan farmaajo ku beesha ah maalinta ay kursi fuulaan labada cag baa la yiraahdaa labada cag nimankan kursiga Soomaaliya waa in laga ilaaliyaa abadal aabidiin nimankan kursiga Soomaaliya waa in laga ilaaliyaa abadal aabidiin wariyaha Maxamed Siyaad Barre afweynaad aragtay afweyne tan u dhigay waad ogtiin haba ugu darnaado Somaliland iyo Maryland afweyne qaranka Soomaaliyeed isagoo adeegsanaya dictatorkaasi macnaheedu Hargeysa tuu ku dhigay waad ogtahay awoodii qaranka Soomaaliyeed ayuu diyaarada intuu u qaatay magaalada Boorama magaalada Hargeysa magaalada ma arkaysa Burco Togdheer
صول يسناك معني ميت كعدد بو دافي قريها واي بربرن واحد مودا قوم هراء أو معني دماضي مال لقو هلاقي أو كلي كدقى سومالي لن واتقران إيسان معني عيد ماضي سومالي يذا كلي حوقي قرنك أيكو قراعين وانا تنمانتا ولا راها سومالي لن عقدد أي قاذين معني ناليسي إنا يدهان سومالي واكاقوني حقنا ويولي محايا لي نبيغا وحو يري ماشي لقو قد باتايو وإناد كتكتا سوموغي قرنك الصومالي دي لقو قد باتايو معني الصومالي نماذا دي لقو قد لايو وإناد كعررتاوي معني ذو مركو وحو ياي صومالي لان وحا لقو بابيي أو لقو دمايي أفوين وكو دمايي وحا قرنك الصومالي taasoo dhalisay ilaa iyo markii dambe ay fahmaan reer Soomaaliland inay dhahaan nin kastoo koonfur ka yimaaday annaguna dilay waa rejiimkii siyaad bar ay dhahaan bay gaadhay in kastoo hadda ay fahmeen oo ay ogaadeen in balaayadaasi faqash kaliya ay samaysay afweyne kaliya qaranka Soomaaliyeed macni uu dhibaatada ku geystay haddaba hadday sidaa tahay isagoo cashar ka qaadanaya ninkan Carays Ciise Kaarshe gabadhiisii kufsaday America loo geeyay waxaad ogtiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo كلجي تليها فيلا الصومالية فردية قبيلة معني قوبة وراليال واحد أكتين أمريكا السببت اللوجي واحد أكتين نكان عيال كلها جوها كلها جوين كان معني أفوينا عرورة قرور شيء أغون إيه وحل ديجري وحلوة أغون إيه وحلنا ما أي سنة هينه وحي أهايين ما أركيس معني جنرال هذا يسراكيش غير سياد معني عرورته هذا ماشى وحلقوا بريجري لقوا كورنجري انت بدن او كورسوين امريكا يدبدنا تشانيس لو سينجري انغا ku jirnayna weydiya markii la qacayaan aragnay oo macni baabuur socdo janan wata waayo hebel cabdi dhuubo soo ful wixii waxaan ogaanay in ma arkaysa qaranka Soomaaliyeed lagu qaraabanay isku soo wada duub walaalayaal war iyo dhamaantii macni afweyne waatan gobolka gedo ma jirin gedo waxay ka tirsanayd baay alta juba iyo baas juba la dhijray waatan gedo ugu daray qaranka Soomaaliyeed daraadeed reeriis inuu dhul u sameeyo natiijadii ka dhalatayna waxay noqotay goboladan hadda reer galmudugga isbaarada dhigta shabeellada hoose ee tuugada burcada ah waxaad ogtahay nafsadoodu in la gumaaday oo afweyne uu gumaaday nafsadoodu ay ma arkayse masaakiin ay ahaayeen oo macni gorofyadooda iyo macni warahooda war mabalahani iyo macni baraagooda baraagay qotaan oo biyaha ay u dhigtaan xitaa in ceelal suna macni sun in lagu shubay oo dameere lagu gooyay ayaad garanaysaa oo afweyne sidaas dhibaato u geystay gobolada dhexe qofka xaqiisa waa la sheegay intuu dhibaato geystayna waa la sheegay walaalayaal haddana Puntland tan uu ku dhigay afweyne waad ogtiin Puntland waxaad ogtiin magaalada Qardho la leeyahay macni kaambo iyo qorya waxa la kale afar xaafadood way Qardho waxa weeye 200 kilomitir bay u jirtaa iyo 7 kilomitir macni Boosaaso Bandar Qaasim waxa ku taalay xarun ciidamada qaranka mid kasto madax adag ee koonfur iyo waqooyi laga soo bedelo la geeyo heer wuxuu gaarsiiyay korontadii eeneeye in baalooyinka u diido heer wuxuu gaarsiiyay gabdhaha reer Puntland dhulkii udgoona lagu geerisho Qardho xarun uu ka sameeyo uu dhaho hal gumaado farmaajo aha nacaybka macni uu abuuray daraadeed adeerkii Soomaaliyana markii laga soo masaafurinay waa la soo badbaadiyay waxa la keenay Mareykanka waxaana America loo keenay Carays Ciise Kaarshe gabadhiisu kufsaday farmaajo uu fuulay gabadhii Carays Ciise Kaarshe ninkii kufsaday buu ahaa afweyne marka si macni loo badbaadiyo oo cadaaladda aysan macni seefta aysan u qabanin America koorso loogu soo diray ninkii gabadha soo kufsaday جانس وحلوسية أمريكا إن لوسو دوفيو محمد عبد الله فرماجو وحو كفصدي وفرحميي عريس عيسى كارشة قبديس فيصل علي ورابي ودولدي أفويني كتر سنة أيابك هو الشيقاي معني وح قرصان مان ووح لأقي هيوان ما فهم يسا معني عريس عيسى كارشة قبديسو كفصدي محمد عبد الله فرماجو وهالدنبيلي نين معني أفيرسو نين قبدا عريس عيسى كارشة كفصدي دولدي سياد برو تاغن معني عدالة ميات كسو جيسان that's a question معني بيدبا إنو حسوقه صورة قلمتاي محو حسوقه واي وانك شريف حسن شيخ آذن انتو لفر يستويري شريفو أذيقو معني ديقل إيا مريفلة متيت وفيرسو ارقاسو استعمالي واحد ديقل إيا مريفلة اللي ينادو أما ما يليرا ديقل مرفلو أما ما يقوى قوميات واحد ما يليرا مجران
ما فهميسا دقلي مرفلو وردول إيه شريفو أديك وحاتاي معني بيل وحات كدلطي ودا حيسب بيلها أردن إيه صوماليات إيه ورنيو دول كانان ربنا إنان قادنو فرماجة دهاي دول كان إنان قادنان ربناي ورنيو أديك صومالي نمدا دي كجوك ومعني دي أمتيد معني دحدحات كأهو لنا حاجة كجراع نمان كان نينك يريوها شريف حسن حناقي وحناقي شريف كودني في عن ما أهين لكن لقب الله بمالين تاسي حناقي وحناقي فرماجة وحناقي يعدو تويدا وقبض ضدك مايلا معني يقوان كيسي بوغا وقريعة ضدك مايلا إلا بابيو حناقي وحناقي إلا يهد شريف حسن معني وطن مقدشعتا وإيمان لأياي إلا إيه فرماجة ماشا لقد تران تران سو مجدد مركا محو استعمالي وينا يا مركا قيبت كوبيا اللباتنات إيه فردقادو يقلو سمريب محو حدود وقت اللابين وينا يا لكن محاك الراعي دقالك أفحنا إيه حدود إثيوبيا معني إيه كل الكشانات إيه حدود إثيوبيا صوماليا تولدها كتالا أو إيه معني فرماجو يباشيس إيه كوهشيين إن أي لايان أي بابيان باش أحمد مذهبي محاك الراعي ويسوقلين وفيرسو iyagoo macnihii dawladda nahayle war nimankan anigu waan idin sheegay labada xaq bay u dhaxeeyaan labada xaq ma taqaan labada xaq labo maalinta ay liitaan waa sidii bare hiiraale oo kale oo martida ku aabaydhabo oo macnihii dhahay anigu may baan ahay oo sabeen soo xiray oo macnihii wax hadii la dila xataa ay dhii jireen annaga dhiibayno war nimankan heer waxaan gaarsiinay marka mayga qof macnihii beesha farmaajo marka mayga uu dilo واجي أريدا وحلا جارسية إني دهان أنا قاعد ديبين أنا قاعد قدرن أنا قاعد قدرن كوا قدرن وأنا موجودة شلي مركي أي حاجة يستينا وحي نور راعين ماركي سقوليا هير قلب دوجي نور راعين سرار يو إند عدي أو توجع أيه نور راعين مركي أريدا اللي بربريي أو العيال اللي قد ديبي أو الدولة دي شاتي جدود جنن كله بربريي أو ماركي سلك اللي جدبيي isbahaysiga dooxada jubba ayuu la baxay wuxuu la soo baxay ma arkaysa macnii xibin aad u dheer oo taran ayuu la soo baxay barihiiraale ninkii shalay baydhaba ka tuugsanay ma baahanba Morgan aad ogtiin waagii arareeda qaxooti kuwa magaalada baydhabo iyo reer Puntland oo dhan siyaasiyiintooda kismaayana la qabta macnii maayo idinka iskale annagana aan idinkula noolaana taagna waxaan ognahay maalin askar ku soo qorotay Jubbaland قرطي وحن أقنع له كدلين أرارين يجا سبعين حري أنت اللي جديد ما يجدو ورما يودي جا كنا ولا نيسا ديجا فيري ور معني مورغان ما جاء دبو أسكرت هذا أمارك يسبب يدوق عتيقوا وحي فنانات جبا يكسو قرطين ليه على قدلي اللي يراضي فرافض أرارين ليه سيد أقول قرن كرتان جبا وريا ما يديك أسكالي iyagii yaa diye laga sii qaaday inta la dilaa diye laga sii qaaday nuuna ma aysan dhigin soo uma jeedid maalintaad xoog badan tahay macnii sidaas macnii lagaaga dambeeya Soomaaliya aad ugu noolaanaysa maalintii laga xoog badan yahay is-aas adoo nool macnii qabrigaaga qodo Soomaaliya waa macnii qaab nololeedkaas ay leedahay barihiiraale ninkii miskiinka ahaa way soogiin isagay farmaajo hubeynaad ninkii miskiinka ahaa war baydhaba gudeeda waagii arareeda heer waxa la gaaray iyagan kala celin jirnay xaakiman u ahay shaati guduud ay u iimaan jireen iyo xaabsada iyo tiimkaas waxay dhii jireen kala celi kuwa ma arkaysa macnii reer aadan gabyow iyo macnii Morgan iyo kuwa meeshaas qaxooti ku ahaa markii ay isdagaalaan waxay u soo kala carari jireen annaga xaakim u ahay kuwaas maanta aad daba ordaysaan oo dad ka dhiganaysa wariyaa kuwan idin ma naxayaan tusaale waxaan ku sheegayaa macnii barihiiraali sidaas aha oo macnii gaari cabdibila ah oo dhashiika saaran yahay nin abtiyaal ay u yihiin araray ku jiray la goostay oo garbaaray la galay wallahi hal cabdibiloon dhashiika aan saarnayn oo ciidamo shan saaran yihiin ayaa ilaa garbaaray la galay buundada luuq ilaa baar dheer intay la jiireen farna lagu taaban waa ay ku soo xabadayeen garbaaray gudeeda ay nuuxsan waayeen xaniyo waxaan ula jeedaa dadkii sidaasi ahaa dadkaas sidaa u liitay maanta baar dheeraan leenahay kuleeyo
maanta waxay ku leeyihiin luuqaan leenahay bay ku leeyihiin maxaa markii ugu dambaysay ay noqotay barihiiraale macnihii isla markii tuugada galmudug ee shabeellada hoose haysata ayuu heshiis la galay waa tii isbahaysiga dooxada jubba la dhisay oo macnihii dowladdii federaalka soomaaliyeed oo generaal shaati guduud iyo tiimkaasi ay ku jireen inay baydhabo soo degto baydhabo ay nafta ku soo noqoto diiday ay ahaayeen soo uma jeedid isbahaysiga dooxada jubba waxaa lagu gumaadayay dadka Mayland waagii aarareeda isdagaashay aarareeda laba markay u kala jabtay kuwii muqdisho aaday ee caqligooda la siray macnihii kuwa tiknikada iyo rasaasta soo sii iyagay ahaayeen kuwa ma arkaysa in baydhabo la baabiyo waagii aarareeda lagu soo duulayayna intayna aarare la dhisin macnihii maxaa noo dana dawladdii ahayd oo xasay madaxweynaha uu ka Allah u naxariistay war dhulka waa la qaybsaday reer galmudug waxay qaybsadeen boqol waxa la siiyay reer cadaada la siiyay hadaa ogtiin hadii kalaba taariikhda dib u barta wallahi billahi tallaahi wad hurdaan dad hurdaatay boqol waxa la siiyay firi saadka boqol nin cagaweyn ay dhahaan Mooriyana markii dambana maxaakiimta loo dhibay gulguduud ku dhintay oo xarameyn mar ku jiray kaasa macnii saadka boqol haystay boqol waxa la siiyay xudur waxa la siiyay macnii reer cadaada la siiyay واجد وحال السيي غير معني الجولة يجحر ما لين هذا إياه السيي سو ما جديد ما أركيسه غير حسن علي قيري يجنا وحال السيي تحسيله إيو إلا دول كان السيي فربنا إيو دول كان وحال السيي يجنا معني إلا إيو بالدوغلي إلا إيو ما أركيسه ضافات دول كان السيي إلا إيو مركا إيو وحال السيي غير أحمد عدو عيديد يا السيي دول كسيدا صار لو قيب صدي ما يو ود هرديسه لكن يا dhirbaaxa kulul baa lagu dhuftay waxaysan filayn baa ku soo baxay waxaan dhuusamooday baxaar igu noqotay oo 157 tagnika ah ayaa laga qabsaday 12 gobol bay ku duuleen dadkan ayaxa cuna oo ma arkayse shalayna gocosada looga maara waayay doofaarka iyagu waxaad ogtiin 12 gobol ayay lugta galiyeen hiiraan bay ku duuleen shabeellada dhexe ku duuleen oo waxay ku duuleen 6 gobol ee Mayland muqdisho macni cali mahdi waxay dhaheen ilaa iyo badan ku shubaynaa tiitinka sidoo kale waxay yiraahdeen ma arkaysa macni kuwait way bililaqaysteen qolyaan macni qayra iyo farmaajo kuwaydaaba loo bixiyayba way bililaqaysteen soo uma jeedid walaal ma turaan way se ku awr kacsadaan markay xaajada ku dhanaanaato macni waxay dhahayaan yaa ahay annago macni saasa waa bentood soo uma jeedid معني محمد ديرا ودمي وحيري وهار ويري كبلان بان جينينا معني دوس قلقدود يا ماركي مدug سو ما جديد waxaan ula jeedaa dawladnimada mar rabaan guriga dawlad iyaga haysta iyagii ayaa ma arkaysa macnihii meel walbana ku dhibaataysan oo magacna raadinaya faham badan oo meel aan iman oo ayax la cunaayay keeneen isku soo wada dub walaaliyaal hal qodob ayaan u baahanahay maanta horta farmaajo beeshiisi waa la goostay afxanan farmaajo beeshiisi waa la goostayo afxanan oo ku taala gudaha Itoobiya xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya hadda maanta ciidamada federaalka ayaa soo dhaxgalay markii la goostay kadib intay duulaan tageen farmaajo beeshiisi nimankan labada cag baa la yiraahdaa marka aad ka itaal badan tahay waa sida barihiiraale oo baydhabo ka tugsan jiray markii aarareeda maalinta aad xoog aadan lahayn oo wax yar dawladnimada jaaniskaas ay helaan walaalow macnii cagtay halkan ka saarayaan marka kalena cagtaada ay shuminayaan labada cag baa la yiraahdaa baro nimankan ma arkaysa isquuska badan oo macnii qabyaalada ilaahoodu waa qabyaalad looguna magac daray caabudu waa sanamkaasi ay caabudaan loogu magac daray waxaad ogaanaysaan oo aad ka dhargaysaan waxay macnii هوتل همك أكل ميرول كدجان بقى هوتل همك السموجي معني مركا لايرك وبحايو دب هالنقطة أما لايرك عادي هالنقطة هو كدجا ساسون وكجريو ده هوتل همك معني إن ما كان هوتل همك سيدا هوتل همك أكل ميرول معني مر بيضة معني تانجي إثيوبيان ككو حسوق مر المدك تانجي معني إثيوبيان ككو حسوق مر ماركا يسكودا يكسمايو مر مقدشة جدك حير السيد كلايو حمر قبصو معني نكرومة وديب qaybta qarxinta miinooyinka nimankan si xukunka ay ugu nagaadaan
qorshaystay dal iyo dibad soddonkii sano ilaa Eritrea isaga habar wacday meel walba nakruuma maanta macnihii qaraxyada dadka fuliya mas'uul looga dhigay waxaad garanaysaan walaalayaal oo ka dharagsantiin waxay socdaanba hiiraan ayaan dhawa jugsiiyeen si ciidamo ay uga soo qaadaan oo ay ma arkaysa dad kale Soomaaliya ay ugu dilaan waxay sii socotaba aakhirkii macnihii xisaabta waxay la gashay in afxanan tuulada afxanan oo Itoobiya gudaheeda ku taala in ay qaybta 12aad qaranka Soomaaliyeed ciidamada intay wadaan xuduudda ka talaabiyaan ay u wataan qabiil kale oo Soomaali ah in ay ku dilaan oo ku baabi'iyaan oo deegaanadooda degan ayay qorshaysteen laakiin tan ku dhacday meydadkay ka soo carareen wartii afbar waaqaroon galmudug lagu dhigay aaway galmudugdii isqaad qaadaysay aaway tuugadii shabeelladoos isbaarada dhiganaysay oo Facebookga bariye laga aamusi waayay waan dhamaynaynaa kuwa qaydara iyo baraaga degan kuwan ma arkaysa afbar waaqa iyo tawfiiq Puntland baa soo taageeraysa waan soo afjaraynaa waan kararaynaa dhahay maxaa dambeeyay kaamirada maxaad aragteen say sidaa u lahaayeen meydadkiini waxaa la yiri waxaan idinkugu dhiibaynaa darsaanta annagu sidii nimaniin meydadkooda loo soo dhiibay say shantayaal loo soo saaray candamaydlayaal meydadkoodii say shantayaal iyo candamaydlayaal marka loo soo saaray waxay bilaabeen nabadan qaadanay yaa nabad qaata idin dhahay ma idinka nabad qaadanaya ma idinka nabad qaadanaya nabada daa qaadanaysaan war 30 sano ayaa qaranka Soomaaliyeed hubkiisi gacanta ku dhigteen oo Soomaalida kaga hormarteen oo qiyaanteen maxaad nabad u qaadan weydeen haddaad nabad ogashiin calimaadi baa madaxweyne noqday maxaad ku weerarteen oo aad u dhahdeen ma arkaysa badan ku shubayna haddii nabad iyo walaaltinimo qaadanaysaan Cabdiqaasim Salaad Xasan oo macnii halgankeeni aaraareeda xataa daraadii loo burburiyay oo annaga dib noo dhibaateeyay ayaa madaxweyne noqday maxaa villa Soomaaliya aad uga soo bixi weyseen oo aad ugu diideen oo number 4 sababta macnii uu guri cusub uga dhistay waa maxay ma dhoofaysid madax Cabdiqaasim sababta aad u dhaadeen waa maxay dawladnimada ma aydan rabin Cabdiqaasimkii aad u diideen idin la dhashay inuu villa Soomaaliya dago oo aad u diideen markii dambe Cabdullaahi Yuusuf baa xabadda futada idinka galiyay una idinka soo saaray una degay villa Soomaaliya soo uma jeedid macnii baryo waxba ku male nimankan walaaltinimana garan maayaan haddii ay walaaltinimo garanayaan war walaalkooday u turi lahaayeen Cabdiqaasim oo madaxweyne noqday ayay u turi lahaayeen villa Soomaaliya uma aysan diideen isbaaro uma aysan dhigteen ex control war albaabkiisa isbaaro dhigteen kama soo bixay siday dhaheen Cabdiqaasim Salaad Xasan war nimankan dawladnimada ma rabaan wax ay doonayaan haba yaraatay ma jiro villa Soomaaliyadii Cabdiqaasim ay u diideen in adeerkood walaalkood oo madaxweyne noqday ay u diideen markii dambana waxaad garanaysaa Cabdullaahi Yuusuf iyadoon baryo aan ahayn taangi Etoobiyana intuu u soo kaxaystay futada xabadda uu ka galiyay villa Soomaaliya ugu yeeray wuxuu yiri Xuseen Caydid adiguna waxa tahay ra'iisul wasaare ku xigeen hadaa iswaashidna agoon baa tahay saaxiib nafsadaada waa ka tarxiilaya villa Soomaaliya waana laga tarxiilay marka waxaan ula jeedaa war nintiisi macnii gabay tu kala waxba kuma daro ninka aniga idhahaya marka macnii mahad salaad ayaan u soo jeedsanaya mahad dameer mahad dhuusay waxaan leeyahay mooriyamaynta aawadid ma sii shaqaynayso waxaan leeyahay waxa hadda uu soo qoray macnii uu leeyahay waan kaalmaynayaa dadka mayga maxaa kaalmaysaa adigaaba ayax cunayee maxay tahay kaalmada ay kaaga baahan tahay Mukhtaar Roobo waan u doodayaa waryaha Mukhtaar Roobo ma dooduu ka raba dameer laba jibaaray doofaar fi naxsaday waaxid ma Mukhtaar Roobo adiga garab ka raba Mukhtaar Roobo dad adiga ka badan ka macnii karti badan ka geesinimo badan ka barwaaqo badan ka hanti badan buu ka dhashay Mukhtaar Roobo dood adiga kaama rabo ari hadduu wax taraayo dabadiisu owdan lahaa war Mukhtaar Roobo waa ninka soo badbaadiyay Xasan Daahir Aweyska oo adiga kula dhashay maantay villa Soomaaliya macnii ay xiratay ninka soo badbaadiyay baraaw iyadoo lagu dili raba doonta soo saaray weeye ninkii hubaysnaa habeenkii Burhaan iyo macallin Burhaan iyo Ibrahim macnii doonta soo saaray weeye Xasan Daahir Aweys oo yiri wariyaysa ku diline kuwaan macnii orod reeraaga aad oo macnii ka soo degtay xarar dheere iyo dhulkaas adigoo rafaadsan waxaan ula jeedaa
war ari hadduu wax taraayo dabadiisuu owdan lahaa haddii xasan daahir aways haddii aad macnihii aad wax soo daynaysaan aad wax soo dayn kardhaan annaga teenna xagga noo dhiga annaga iyo farmaajo iska keen dhexbaxa farmaajo annaga nooma matalaysaan farmaajo macnihii annaga noogama turjumaysaan waan isnaqaannaa waa dadkii shalay qaxootiga aan u soo dejinnay reer farmaajo iyo annaga raganimo aan isaga dhicin karnaan leennahay waryaha nagu afgobaadsanina annagu afgobaadsi idinkagama baahnin garabna idinkagama baahnin bal annagaaba idin gurmanno idinkoo laba qayd wata oo macnihii double sheet wata annagaa macnihii abaartii dabadheer iyo masagadeenna iyo galaydeenna idinkugu gurmani jirna SDM bay ahayd midda xuduudda Ethiopia ka soo gashay ilaa iyo afgooye ilaa iyo sinka dheer ilaa iyo ma arkaysa carbiska ilaa iyo ex control keentay siyaad bare afweyne ka soo saadhay annagay ahaayeen idinkuna ilaa iyo gobolada dhexe aad saxariir ku timaadeen Sinai oo ay ka bilaabeen reer xamarka xataa inay bambatuuraan marka waxaan u sheegayaa war ari hadduu wax taraayo dameer mooriyaan mahad salaadow war annaga ganahana suran war annagu ganahana suran dulli baa tahay uriyaa ganahana suran garabna kaama doonayno baydhaba xasuuq ka dhaxay baan u doodayna ma adaa baydhaba u dooday yaa ku yiri xaniyaa aad baydhaba ugu doodo waa maxay baydhaba taan shalay adigu aabaabiinaysay balwaana soo kiraysateen markaad macnii wax idin hadla aaweyseen balwaan baa soo kiraysateen oo macnii naashnaashaya mahad salaad iyo beeshooda waa beesha kaliya u gurmada oogii macnii maay u gurmada waryaa hooy annaga ganahana suranina annaga ilaahay ka sokow gurmad kama rabno gargaarna kama doonayno macnii dad ayax irsaaqad ka dayay dad ayax macnii dabada iyo baalaha ka jaray ee cunaaya annaga garab kama doonayno annaga isaga filan dhammaan maxaa oo dhan maniin annagu qabiil adinkaa qabiilla ah annaga qowmiyad baan nahay nuuc walba leh u fiirso qowmiyadduna way ka ballaaran tahay qabiil waryaa idinka qabiilaatiin yaryar annagu qowmiyad ballaaran oo waxaanu nahay 10 gobol salka dhigatay ilaahay badiye da ilaahay hadduuna badiye maxaa nugu samayn kartaan waryaa 60 sano oo calanka Soomaaliyeed aad nugu baabiiseen mooyaane inaan boqortooyooyin ahayn Yaxya Caamir weydii oo idinka dhashay inaan Soomaaliya oo dhan aan xukumi jirnay weydii war hal boqoradeenna hal boqor oo afgooye kaliya degan ayaa 50 kun oo ciidan dhaqaajin jiray dawladdii Soomaaliya macakacaankii afweyne ku dar ciidankeeda militariga 42 kun kama badnay boqorkii joogay luuq ganaane kii baar dheere kii ma arkaysa baydhaba fadhiyay marka laga yimaado iyo buurakaba geedi bahbow iyo baalqalooc iyo dubka baalow iyo malaaqyadii ciidamadoodu koto ka badnaayeen marka laga yimaado hal boqor kaliya taariikhda la duugay Yaxya Caamir wax soo weydii koto kun oo askari buu dhaqaajinay seed aniga macnii iigu gargaaraysa tuug baatay waryaa annagoo wada jirna awoodna kuma aadan tagine salbalaar xilligeedii ayaad macnii dhabarka iga toogatay oo ma arkaysa bakool reer cadaada la siiyey ood qaybsateen fara badan iyo macnii reer mahad salaad bilidoogle iyo leega iyaad qaadateen macnii baydhabo waxaa la siiyey reer maxamed faarax jimcaale iyo ciidiida la siiyey marka cidda la siiyaan ognahay war saasaab shalay iigu soo duushay macnii sidee aniga iigu gurmanaysaa waryaha ayaan la idinka gadin dadka mayga ah meelaha qaar mararka qaar weyrooyin laakiin waxaan arkayaa weli dad xayawaannimo haysan arkayaa mayga waryaha mid guud hadday timaado tangaarka annaga waan isgoosgoosan karnaa waryaha hadda naf waxay badeen war afayeenkii Mayland Dr. Cali Cabdi Baab ayay naf ka dayeen u fiirso Cali Baab mahad salaad intuusan soo jawaabin shalay ayuu soo duubay clipkan annaga lafta gareen inaan ku duulno annaga rabnay macnii khudbadiisa habeen hor markuu jeediyay subaxii ajandeen wuxuu ahaa jugta culus iyo SMC inaan dhaano Abdicasiis lafta gareen macnii dhiigii uu qariyay annaga macnii xasuuqii u geystay inaan ku tumano annaga doonayna ayuu hormarsaday Cali Baab mahad salaad qoraalkiisii iyo kan Cali Baab uu soo duubay Cali Baab baa dambeeyay mahad salaad baa dambeeyay Cali Baab baa horreeyay ajandii aan ku duuli lahayn aan kula xisaabtami lahayn ninkan la keensaday ee annaga naga dhashay oo macnii xayawaanka ah ajandii aan kula duuli lahayn horu dhaceedu duubay Dr. Cali Cabdi Baab geesigaas laakiin filinkii uu duubay
bal kaalay reer galmudug cali baabay wareejinayaan macnii naftaa qabatay naftii macnii dan waxay biday naftaa ku dabayar dan waxay biday Dr. cali baab kaliibkiis inay soo qaataan war haddaad dad tihiin maad isdifaacdaan weligood waxay raadinayaan in dadka mayga ay isku jabiyaan ay dhahaan aadan ingiriisow waxaa kaa wanaagsan ma arkaysa macnii axmed olola kaa wanaagsan axmed ololow aadan ingiriisa kaa wanaagsan war yaa idinka caqli yar yaa idinka dabaalsan nafta waxaa naf ka raadiseen kaliib Dr. cali baab ulay cali baabna maantuu soo hadli doonaa maantuu idin karbaashaya hadday naftu meeshaas ay idinla gashay war yaa cali baab waa afayeenka shacabka waa ninka isbaarada aad dhigateen dhulkiisii biyihiisii aad ka iibiseen shalay islaamnimo idiin soo dhoweeyey cali baabna 24 saacadood wax ka yar oo aad ku baashaasheen kaliibkiisii waxaa noo dhiman Dr. cali baab oo hadlaaya oo macnii idin jawaabaya haddii aan heli karana haddaan ma keenaya nafta haydin dhaaftee haddaan ma keenaya Dr. cali baab ii kaadiya معني دكتور علي باب فيلنكي سوريجنايا مال والبا علي باب السياسي علي باب واللفت جرين ردي ورلفت جرين أناجو منوت الماميسان ردين تيسي يوعك شيء تيسي دكتور معني نيكلا علفت جرين أناجو نبري ميسان لكن وحنا دي شيء هدي دكتور علي باب النفق الضيدين ما هتروصاي يا ونين مايلان aad naf ka daydeen inuu naga kiin difaaco waxaan taaganahay Dr. cali baabna uu soo hadlaya wuu idinka daba imaanaya haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo waxaan sheegaynaa walaalayaal naftu markay u timaaday macnii mooryaanimadooda la sheegay isbaarooyinkay dhigtaan la sheegay oo albaabadoodu ay isku soo xidhxidhmeen balwaanay soo kireysteen سلام الله عليكم دكتور علي باب والله بالله تعالى دكتور علي باب ايقا مشغول سنة معني وابا إذن كان نحسن الله والله وحانو لجيدا معني ما صلاة يبيشو ده مايلان وي قرقارته داد اقر مدوي صومالي لماذا كوفي عنواي صومالي انتا كتين صومالي حقيت كتين صومالي انتا كتين inaan iswarsanno qaranka Soomaaliyeed guriyaha dawladda nimanka degan Soomaaliyeed nimanka taalooyinka fiiqday Soomaaliyeed yeeyda macnii saraha qaranka Soomaaliyeed Soomaali ay ka dhacayso ay fiiqatay Soomaaliyeed ma qaran baa abaal u haysan waraabe waxa la yiri waraaba hooyadiisi cunay ma habaryartiisu uga abaalinaya war qofka cunay saraha dawladda fiiqday war guriga dawladda hadaa qabsatid xitaa aad iska degtid maxay noqon lahayd waxa ma noqoteen war guriga qabso deg rinjiyeyso ku noolow laakiin guriyii dawladda intaad macnii qabsateen baad fiiqateen bulkeetigana aad ku qaysheenod cunteen ayaxana waad cunaysaan hadda marka dambana barambarada ayaad cunaysaan waxaan rabnaa barambaro waxaan rabnaa barambaro inaan baaq u dirnaan doonayna barambaroy waxaan ku leenahay mar dhow adna waa lagugu soo socdaaye reer galmudug way idin cunaya way ku cunaysaaye barambaroy ayxii mar haddii la soo galay barambaroy digtooni difaac gal nasta digtoonow dhe barambaroy difaac gal barambaroy difaac gal kuulay cali banjaray difaac gal raysow difaac gal lagu dhaafi maayo waa la idinku soo socdaa habar dugaag inta xamaarato dhan waa la idinku soo socdaa waxaan leeyahay barambaroy waa inaad daafac gashaa dabagaalo waa inaad daafac gashaan kuulay cali banjaray waa inaad daafac gashaa walaalkiina ayax waa la soo cunay walaalkiina ayax salaamu alayhi calaykum walaalkiina ayax waa la soo cunay qax buu noqday waxaanu leenahay nimanka ayaxaasi cunaya qaranka Soomaaliyeed hadday qarannimo doonayaan war meesha ugu dhow Cabduqaasim Salaad Xasan oo annaga waliba na dhibaateeyay oo indhacde hubkii qaranka intuu u soo dhiibay ciidamadii qaranka ee Soomaaliyeed dawladda dhalatay ay isdhaheen isugu timaaday marka iyo shalambood iyo dhulkaasi la soo dajiyay tuutaa dawladda intuu u galiyay
in dhacda gacanta ugu geliya shabeellada hoos u ahaa oo ciidamadii iyo saraakiishii ay soo laayeen war qarannimo hadday doonayaan nimankan cali mahdi maxamed ayaa madaxweyne noqday 2 sano oo kaamila madaxweyne loo doortay hadda waxay dhahayaan hawiyaa lagu soo duulayay aan iskaashano ma hawiyay wax u hayaan way ku awrkacsadaan way cunaane ma waxbay u hayaan Soomaa nimanka shalay cali mahdi dhahayay war badan ku shubaynaa kuwan Soomaan BBC intay ka hadleen ay dhahayeen macnii cali mahdi oo sharci loo doortay oo madaxweyne Soomaaliyeed noqday dawladdiisi nimanka ku duulay ay yiri ma arkayse waa in aan badda ku shubnaa BBC-da ka yiri war caydiid iyo reer galmudug Sooma ahayn Sooma ahayn iyaka dawladnimo hadday doonayaan haddii siyaad bara meesha laga saaray cali mahdi maxay jaanis u siin waayeen annaga wayna gaadeen kuwa macnii karasaay oo kale oo maqaar saaray noo soo direen markaasaa waxay dheen SDMA dawladda dhalatay hubka xareeya xarumaha dawladda geeya hubkii waan xareynay ma annagaana la gumaadi lahaa SDM-tu way hubaysnayd nimankii afweyne ilaa iyo bakool xuduudda Itoobiya doolow ilaa iyo kudhaa ka soo galay iyagii SBM keenay ma arkayse siinka dheer iyo carbiskay ahaayeen war ma sahlanay nimankan macnii mayga ah laakiin hubka goormeel laga dhigay hubka waxaa laga dhigay cali mahdi dawladdiisa loo tagay waxaa lagu yiri maayo hubka dhiga SDM ay dawladda dhalatay war hadday dawladnimo doonayaan nimankaasi oo walaalnimo xishmeynayaan cali mahdi soo kama xishoodeen haa maya cali mahdi maxamed dawladdiisu sooma aysan raaceen maya guryaha dawladda iyo beeraha dawladda macnii guryaha dadka iyo guryaha dawladda iyo beeraha dadka in ay boobaan ay milkiyaan ay degaan bay doonayeen mawjada cali mahdi ka kaalay haddana waxa dawladdaaba dhalatay oo ma arkaysa madaxweyne uu ka yahay nin annagana dhibaateeyay oo cabdiqaasim salaad xasan la yiraahdo cabdi abaar la yiraahdo war dawladdan ma waxay uga soo horjeedaan dawlad war farmaajo annagu waan ka soo horjeednaa mawjada kaligii taliyaan waan ka soo horjeednaa laakiin nagu awrkacsan maysaan farmaajo ma waxaad u malaysaa in ay nacayb gooni ay u qabaan maya shalay bari hiiraalay la safnaayeen isbahaysiga dooxada jubbay wada ahaayeen u fiirso iyagaan macnii shalay macnii kismaayo ku wada duulay oo annaga nagu soo wada duulay mayleen waa reer bari hiiraale waa reer farmaajo iyo reer galmudug u fiirso laakiin farmaajo uma diidana wax kale waxay ka xun yihiin ra'iisul wasaare Khayre oo macnii beesha uu ka dhashay oo Kuwait la yiraahdo ay boobeen inuu ra'iisul wasaare ahaado jagada inay ka ritaan bay doonayaan this is the reality xaqiiqadu waa sidaas dadku marka laakiin ruumba iyo boor bay isku qarinayaan maanta dhan way dharqaan dhabanayaan way iska daba wareegayaan way cartamayaan wax walbay sameynayaan ay ugu suura gasho ma shaqaynayso laakiin ma shaqaynayso waxaan ula jeedaa dawladnimo hadday doonayaan meel dhowaan ka tusay haddana cabdiqaasim salaad xasan oo carta lagu soo doortay magaalada muqdisho yimaaday kuukaay nimay dhahaan iyo xaafkan oo shabeellada hoose number 50 controlkaasi haystay macnii barxadda weyn ee tarabuunka inta xaaq la yiri lacaga leegu soo yiri cabdiqaasim uma aysan diideen villa Soomaaliya oo iyagu ay haysteen dawladdiisu inay degto ay ka shaqayso uma aysan diidi lahayn hadday dawlad doonayaan war dawladnimana ma doonayaan Soomaalinimo mawjada xeradii ay u diideen cabdiqaasim hadday dawladnimo doonayaan cabdiqaasim salaad xasan macnii tarabuunka intuu guri ka dhisto agtii madaxtooye kama dhigteen haddana cabdiqaasim salaad xasan hadday dawladnimo doonayaan yaa albaabkiisa isbaara ma dhigteen ma aysan dhaheen ma dhoofaysid madaxweynihii Soomaaliya oo dhan oo nimankan dawladna ma doonayaan xishmadna ma yaqaanaan walaaltinimona ma yaqaanaan mawjada waxay doonayaan kaliya in ay guryaha dawladda iyo beeraha dawladda iyo guryaha shacabka iyo beeraha shacabka ay haystaan Soomaaliya dhac iyo boob iyo kufsi iyo argagixiso iyo macnii ay ku wadaan macnii burcadnimo waayo burcadda Soomaaliya yaa noo aasay
war ma ii sheegi kartaa nin maay ka soo jeeda oo burcadda Soomaaliya ku jira ma ii sheegi kartaa burcaddan mar walba la soo qabto ilaa iyo Belgiumka afweyna ku xiran waad ogtiin ilaa afweyna ku xiran علي أفوي أو غير عدادة هي تيعيا كحرنا وربرعدان إلا إيه ماركة يسمعني الدنيا ده لجو حرو سيشيلس محكمة ده لجو صاروا إلا إيه بلجيمكا إلا إيه جريت بريتين إلا إيه يونايتد ستيتس أوف أمريكا محكمة ده لجو صاروا برعدا سنين ما يمكجرة. Can you tell me one individual from my land member of piracy in Somalia? برعد بدات كصوماليا قف ماي أكجرة ما إيش أي كرتا no ما هليسيد سو مجدد ما إيه هلي كرتا معني نين ماي أو معني آسي أما آسياشي terrorist of Somalia كم إذا ما إيش أي كرتا أرجع سدا مايا هذا مركز أي سوق رايان كوا فرماجج كذا وجرة إني كلام مارمين أنكو شيء جاية مد علي رأي دهان أو محمد عبد الله فرماجو هيلي بكذا دمية أو معني عنتذا كذا دمية أو عنتذا أسوكرية قلبودو كسو جيدا علي الجكول يرادو أياه سوق عطي مدحوين مختار روبو جيسيجا شرفت له هاليجا إلى هاي جيسني ماذا الشيء أو ما أنتي علي يراها بيشي سيدات بدن أو كمد مدحي سيكونوا ليين لأنه مدحوين مختار روبو هبين كيس فؤاد شنقلاء يتيم كيس أي دهايين معني ورنيو مختارو شبه لذا هوسي إلا إيو مقدشو إلا إيو قلقدود إلا إيو معني قال كعيو نمان كان ماركيسي لبك بدن وعايديد كو بيشاي إند عدي بيشو دا يحسن داير آن قمادنو مدع الشباب آن كو قمادنو فؤاد شنقلاء يتيم كاسي مركيسو جيديين نينك الديدي أو دفاعي مختار روبوها oo yiri wariyada anagu diin baan ku dagaalamayna muxtaar roobo wadhay diin baan waxa la isku qabtay koow qodobadaas ka mid ah war anagu diin baan ku dagaalamayna macni in magaca ururkan diinta ah shabaab lagu baabi'iyo qabiil kale oo ma arkaysa macni Soomaali ah oo muslimiin ah ma ogolaan karno meeshii baa lagala qaaday soo ma jeedid muxtaar roobo waxa uu badbaadiyay mudug ilaa iyo galguduud niman kan hadda maad salaad iyo meelaha kan naale iyo caliyaraha sawirka muxtaar roobo soo qaatay wariyaha shabaab waad ogtahay gal wax soo baar wax ma ogide nacas baa tahay ninka ku badbaad war adiga sadar cad su'aal ka dhan war soo garan maysid korneyl magudbe xasan daayir aways korneyl magudbe soo garan maysaan xasan daayir aways oo loo yaqaan korneyl magudbe soo garan maysaan yaa soo badbaadiyay iyadoo madaxiisi hawada lagu duban rabo isagoo madaxiisi hawada lagu duban rabo yaa soo badbaad abaal male wallahi abaal male muxtaar roobo cali abu mansuur kamaanta cali jiko oo kan macni dhamiya argagixisada 7 milyan oo naga dilay intaas 7 milyan ma badamidiine ha magaca ma ka raadinaysa ma mayga la tartamaysa mayga 12 milyan iyo 13 milyan 15 milyan ma macni maybaad yaa iska gadaysa 7 milyan war idinko dhan hadii la idin soo kuuso macni 2 milyan kama badidin ama 3 milyan maygana waa dhor iyo 10 milyan waa qowmiyad waa ha intaas uu dilay marka leedahay dibna waan ku xasuusin doonaay soo ma ogid markii go'aanka shabeellada hoose maxkamadii radul madaalim la sameynayay muxtaar roobo in fu'aad shangala iyo tiimkiisu oo macni reer beeshan farmaajo ay u soo jeediyeen ay dhaheen warniyow nimankan macni diin islaamna macni toos uma ogola qarannimana ma ogola reer mahad salaad iyo indhacde iyo reer galmudugan si aan Soomaalida uga hor leexino dalkan si loo xukumi karo ilaa iyo gaalkacyo koonfurteeda ilaa iyo hobyo aan gaarno inta ka dhaxaysa dhulka ku jirana inta joogta aan gumaadno magaca shabaab aan ku gumaadno markii muxtaar roobo loo soo jeediyay ninka kaliya gaashaanka u daruuray madaxweyne muxtaar roobo xasan daayir aways muxuu u difaaci waay markaas muxuu macni indhacde muxuu idin difaaci waay abu cutayba waaba la qalay ma joogin muxuu macni asxaan maliidin دربي بان إذن نقني wax badan baan idinka daafacnay waagi Umar Jaasna SBM
oo dhabarka ka toogashada idinka bilowday afgooye iyo dhulkaasi dadka xabadda ku bilaabay Cumar Jees annagay ahaayeen Mayland SDM dadka Cumar Jees ilaa iyo xuduudda Itoobiya Soomaaliya macni islaanta macni mayga beerta falanaysa xataa maqar iyo madiilo la soo baxday macni baydhabo iyo bakool iyo shabeellada soo cad arkaysa meel astaama memorial looga dhigay oo macni dhagaxaan la tuuray ama ood la tuuray dhis oo la leeyahay halkii geedba waa nin reer Cumar Jees la leeyahay marka abaal ma liidin low Mukhtaar Robow uusan ahaan lahayn ilaahay baan ku dhaartay go'aankaasi shabeellada hoose habeenkii macni lagu qaadanayay oo reer galmudug Soomaaliya aan ka qabanno Faad Shangalo iyo tiimkaas ay soo jeedinayeen madaxweyne Mukhtaar Robow hadduu qalinka ku duugi lahaa rabbul izzan ku dhaartay galmudug maanta midna kama noolaadeen maba ka noolaadeenba waxay noqon lahayn inferiors ay noqon lahayn waxaad noqon lahaydeen sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beeshiisu 91dii jaftii la siiyay faqash oo dhan hala dila la yiri oo maanta Eritrea meesha ugu dhow ay tageen Eritrea u Tanga iyo Kakuma saasa noqon lahaydeen laakiin waxba garan maysan Mukhtaar Robow Cali Jiko intuu soo qaatay ayaa wuxuu ku qoray ma arkaysa macnii intaasoo naga laayay Mukhtaar kan idin badbaadiyay buu ahaa kan hadda adeerkaaga Cornel Magudbaha live ka soo gala Villa Soomaaliya gabadha yarna loo aroosiyo oo macnii Farmaajo uu laalusho iyo hadal u dhaw ka isaga ninka badbaadiyay isagoo la dili rabo Mukhtaar Robow ahaa meel kaleba waxa uu doonin indha run bay ku ooyaan ilkay 10 waa la cadeeyaa intaa waxa sii dheer marka haddaan ku soo noqonayo Cali Yarow taasi waa badbaadadii iyo gurmadkii madaxweyne Mukhtaar Robow uu idinku badbaadiyay annagu qowmiyad baynu nahay Mayland haddaan nahay oo idinkuna qabiil baatiin qabiil iyo qowmiyadna ma sinna qowmiyadu waa qaran nation baan nahay nuuc walbaan isugu jirnaa waxaan isku qabnaa naga isku qabnaa Karasay haddaan isbuursano iyo haddii ma arkaysa maxkamad aan saarano aan goosgoosano annaga inoo taala idinku hawliina maan laakiin waxaan u soo jeesanayaa Cali Yarow Cali Jiko Ali Saliid Ali Macsaro Ali Dhiiqo soo jeeso kan cuntada u dhadhamiya ninka dabada karkaran ee Farmaajo oo dabadiisa booyada irbad leeg faleebalo habeenkii lagu quudiyo intuu kan baruursado juqdii lagu sii dhiiga fay ka soo kan ka tirtirow dhiigaas sida saquumka u uray Ali Jiko dhagayso waxa tiri Mukhtaar Robow waa macni argagaxiso ayaa tiri marka kii shalay ku badbaadiyay laakiin dhagaaga fur qalin iyo boogna qabso kow ninkii ugu horeeyay ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed walaalkii isku qarxiyay Cabdullaahi Yuusuf isku qarxiyay dawladii baydhabo fadhigeedu ahaa ee ku meel gaarka ahayd uu hogaaminay Cabdullaahi Yuusuf kow in adeerkaagu ahaa nin nool oo isqaaciya Soomaaliyoon aaminsanayn nin Soomaaliya inuu isqarxinaayo Soomaaliyoon aaminsanayn ninkii ugu horeeyay oo isqarxiyay Cali Jiko in adeerkaagu ahaa dhagaa fur mahad dameerow Mooriyan dameer mahad salaadow dhagaa fur doofaarka dhuusayow ayax cune dhagaaga fur in adeerkaagu ahaa ninkii ugu horeeyay oo macnii Soomaaliya diin baan dad ku dilayaa oo Mooriya gareynimo sameeyayna waa Cornel Magudbe oo hadda macnii Villa Soomaaliya lugaha ay ka xiratay oo ma arkaysa Xasan Daayir Aways la yiraahdo waa in adeerka wariya ma ahan Mayland ma ahan masaajidna kama adimo mayna asal uma galo mayna ma ahan waa in adeerkaaga ma dhuusaya Cali Jiko waa idinka in dhacdo waa idinka ninka yiri Addis Ababa ku tukanaynaa oo guriye iyo beerad dadna haysta waan jihada yiri ummadda dagaalka markuu galiyayna Sacuudigan macni aan u xajinaynaa yiri jihad la joogo xajaan aadaya meesha isku qabataan ba fahmi waajadkaas ya macni in adeerkaagu ahaa inta u soo noqadana Cali Jiko aadan xashaciro ma taqaana aadan xashaciro ma lagu baray ma baratay ninkii dhuuso mareeb diyaaradaha Mareykanka 2008 ay ku qarxiyeen ma garanaysaa oo macni sidii mitum oo kale baskoolada laba gacmood intuu ku qabsa dadka macni u leeyin jiray iyagoo waxba galabsan Cali Jiko ku qoraade liiska qaldin tiradana qaldin in adeerkaagu ahaa Cali Jiko
mahad salaad dhuusayow waxaan kuu sheegayaa baro haddana day caga weynaha oo waagii horena bakool saadka haysan jiray waagii aarareeda oo markii dambana alxaramayn qabsaday iyo boarding school oo diin ku qaraabtay haddana maxaakiim intuu noqday mooda ku soo duulay oo dhag la siiyey markii dambana shabaab toos ugu biiray oo galguduud lagu dilay adeer waa in adeerkaa deegow meel ku qoro tiradaha qaldin abu cutayba beesha guud ah ku maxaabsataan weeye qayruu ku beel yahay shacali dheere dhiiguu ku weysaystaa ilaa iyo hadda qaracyo kasta ilaa iyo siliingi ilaa iyo hargaa iyo saamaha shaamow wuxuu ka xishooda male khayrana dhaqaalaha isagaa u soo dira dadka maygaa intuu ka soo qaada sekada weliba baydhaba lacagtii lagu xasuuqay cali dheeraa soo dhiibay xisaabta macnihii gadaal u noqo argagixiso haddaad u baahan tahay daalimkii weynaa ee geeriyooday dulmiga weynaa bidaartaydii tiisii iga weynayd caydid insha allah naartuu ku jiraa oo siduu macnihi dhagdhag u lahaa isagoo oolaya burshaato marsan dhuundhashiike ku dheggan dhabarka dhuundhashiika kaga dhacday dhow isagoo la geeriyooday isaguna waa in adeerka cabdi qaybdiid oo maantay dastuurka loo dhiibay macnihii senator ah cali jikow dhegayso ninkii saybiyaani la fuulay macnihii cuuriyaanta la fuulay hoobiyaasha oo bakaaraha duqayn jiray buu ahaa argixisada ugu weyn Soomaaliya weey waa ninka habrihii daablayaasha ah iyagoo macnihii cilaaman gacmaha cilaan kale oo hooyooyinka ah oo macnihii ilmahooda u shaqaysanaya ninka intuu hoobiye ku dhufto gacmaha iyo wadnaha bani aadamka uu daadiyo isla markii dadka loo gurmada la yiraahdo oo macnihii dadka isugu tagaan in dhaawacyada iyo meydka ay ururiyaan haddana dhaawactir ugu soo celin jiray waa isla bartii si waxba aan u badbaadin u fiirso war haddaan tirin maago war xasan daayir aways puntland maxaa geeyey dhuuda iyo saliid inuu ka dagaalamo maxaa geeyey hadduu nin raga yahay cabdullaahi yuusuf wuu qabtaye cabdullaahi yuusufna si raganimo ula hadlaye muxuu u dili waayey dhuuda iyo saliid markii ka dagaalamayay diin baan wadaa u lahaa diinna ma wadine war diinta shabeellada hoose isbaarada dhiganaysa laga macnii aa kala hadli weysay oo aad kula jahatami weysay oo aad macnii guryaha dad iyo beeraha dad ka baxaadhii weyday macnii oo aad boosaasa u tagtay oo macnii garbahaarey iyo gedo iyo baydhabo iyo mooda aad u tagaysaa diintaasi macnii taasi ma antii ilaahay nebi maxamed u soo dhiibaye diintaasi waa tii we cannot accept ma oggolaan karna annaga marka waxaan ula jeedaa cabdullaahi yuusuf dhuuda iyo saliid markaa ka dagaalamaysay oo jaamacali jaamacii ragga aa soo raacday iyo marya xalastii cadda muuse allah u naxariistay markii dambe way heshiiyeen oo aad macnihii baal ka dhigatay adeer boosaaso waa ku qabatay cabdullaahi yuusuf laakiin luuqaduu kugula hadlay maxay tahay war anigu haddaad idishaanna xasan daayir haddaa idishaanna gadaashaydu ma noolaanaysaan dad baa iga dambeeya haddaa idaysaanna joogi maysaan oo idin dhahay ninka saa idinla hadlay maxaad u dili weydeen haddaad karti iyo dad aad tihiin waa daysay maana aadan soo joogin ballantii dhabay noqoto adeer garo haddaan tirin maago macniid Soomaaliya qaska iyo fawdada iyo argagixisada reeriin haddaan soo tirin maago cali jikow ilaahay baan ku dhaartay macnii 24 saacadood macnii lama qori karo waa la daalaya wariya caraala ka cilmi badan ma taqaana xogay ninka xasan daayir aways gabadhiisii qaba oo xogay gaashan dhiga ee xisbul islaam aha ma taqaana in dhacda ma lagu baray ma taqaana okay mid kale oo kiyaal wato oo isaguna xeelasha biyaha ka naanaalaha oo macnii sawiradiisi mar walba la soo saaro ma taqaana abu cabdalla ma lagu baray abu cabdalle ma maylaan u dhashay abu cabdalle ninka ay leeyihiin abuuda noo soo qaatay ma maylaan u dhashay wallaahi oo billaahi oo tallaahi mukhtaar roobo waxaan u sheegayaa horta ninkaasi nin daacad ah waa madaxweyne mukhtaar roobo waxaan leeyahay adduun iyo aakhiraba adiga waa guulaysanaysaa biidni illaahi baarik low mukhtaar roobo uusan ahaan lahayn ilaahay baan ku dhaartay nimankan firkoodaa la tiri lahaa kadabkoodaa la goyn lahaa habeenkii shabeellada hoose loogu tashanayay
ومدحوين مختار روبو وعيدما حوقن إساقو وطا معني فئات شنقلي يريروه ذو دن يريرها فرماجو انت الشباب يسقو يمادين شركة قدنا اويري مختارو وحان كا عدسانينا انصار تيباتاي ديغان كاديغا اوبادن وحان كا عدسانينا نمان كان هير قلمدوغا سوماليا ويكدقو ويسي إذن كانوا ويدن كسو دولين أبارتي قعنكو سميسكا إيجا معني قيبكا أها نمان كان سي سوماليا اللوغا قبطو نمان كان هدو معني هلقن كعان كجرنا حتى ويفشلين دونان نمان كان منافقين وي نمان كان تشرشروريال وي نمان كان وجيه بدن وي شيخ مختارو أبو منصورو وانكو بريينا فيريا سيدا سالير وانكو بريينا إنا أذيرو نمان كان إن أن مقع عن شباب هدان جانيس كوينا أنكو قمادنو نو أقلو oo ciidankan aan daadino oo aan ku daadino ma arkaysa ilaa iyo hobyo aan ku daadino oo aan ku soo goyno dhulkan macnii bahgooyada ah inaan ku baabi'ino magacaasi noo ogolowale xilligaas iyada war waxa macnii maba la gorgortaminba waxay ugu dareen xasan daahir waan qabanaynaa waan qalaynaa isaga xasan daahirka isagoon ogeynaan qalaynaa sida kuwa badan aan u qalnay ayaan u qalaynaa kuwoodii macnii nugu dhex jira قارنا وان قلينا قارنا حبس قريان كدغينا سيدي حسن تركي او كله اسغو حبس قري يعني marka dambe uu dhintay ay u dileen saasan sameeynaa laakiin muqtaar muxuu ugu jawaabay wuxuu yiri hadaan diin ku soconayna ma shaqeynayso hadaynan diin ku soconina ya dawaan ku kala tagayna muqtaar robo qodobka laga la qaaday wuxuu ahaa galmudug ila laayo oo magaca shabaab lagu laayo عكسيده maanta علي سليد علي جك علي ندمي او soo qaatay madaxweyne muqtaar robo intaas daga muqtaar robo dagaaladii isaga hogaaminay geesi weey hogaamiye kooxdada marka laga saari waayay muqdishadii aa ku naalooteen markii dambe oo maxaakiimba aa ku noqoteen ninka ilaa iyo bashiir raage galgalata iyo dhulkaasi ilaa iyo muuse suudi dhulkaas oo dhan ninka macnii tirtiray oo macnii qidadiisa militariga macnii ku xoreeyay weey ما دغال باتقانا نيكان وا ليدرشيب إلهي با بري geesinimo leadership hogaamin tactic ilaahay baa baray waxaan waa hibo ilaahay dhiibo marka waxaan ula jeedaa wus dagaalada isaga hogaamin hadaa dhaadeen geesi weey dagaalada isaga hogaamin hadaa dhaadeen geesi weey waa 14 marka waxaan ula jeedaa wariya dhamaantii waan ka baxayaa safar baan ku jirnaa noo soo duceeya inta wanaaga jecel ee dulmiga diidan inta kalena nasoo habaarkiina awal baxaraan baad xuntay waxba qaban maysaan isku soo wada duub walaalayaal waxaan leeyahay macnii mooriyaan dameer mahad salaad maay kaalmo kaama rabo caawinka ma doonayo ari hadduu wax qabanayo dabadiisu owdan lahaa haddaa wax soo dayn kartid orod nakruumo iyo farmaajo ka soo dayso xasan daahir aways ka soo dayso orod ka soo dayso wariyaa adeerka ka soo dayso annaga noo meerin hanoo sheegin annaga madaxweyne muqtaar robo aan u dooda wariyaa macnii baydhabo wixii ka dhacay baan u dooda baydhabaha u doodine war waxaad u doodaa ya galmudug baad hadda macnii lagu haayaaye hadda u dood cadaada Itoobiyana joogay u dood dhuusamareeb Itoobiyana joogay u dood hadda u dood dadkaaga u dood dadkaaga u dood hadda wax qabanaysid Mr. ayax cunow orod adiga horta dad noqo orod wax qabso adiga orod adigu wax qabso dundunta iyo dhagaxa orod wax macnii soo qabso waa la sii qabsanayaa annaga waxba na caawin hanugu afgabaadsan wariya ganaana suran maay baan la dhahaa dadka maayga waxaan u sheegayaa filimkii Dr. Ali Baab uu duubay oo ma arkayse mahad salaad intuusan soo jawaabin shalay macnii annaga aan rabnay lafta gareen inaan macnii ku karbaashno oo aan macnii annaga aan isgoosgoosano ayay meelaha la wareegayeen la dharqaan dhabanayaan tabar daridooda soo uma jeedid waxaan leeyahay dadka maayga mar dambe sidaas oo kalena yaan leedin kaga faa'iideysan yaanan ma arkayse macnii naf aysan idin ka dhigan waa cawsgeeriyaad meeshii ugu dambeysay bay marayaan ceeb meelay istaagaan male ayahay cuneen baa la leeyahay soo uma jeedid shalay nagacosay cuni jireen doofaarka isku haysteen meel macnii ay ku fakadaan ma jirto mar hadday sidaas tahay war annagu aragnay waxaan waxay yiin waa aragnay
abwaan tarash abwaanka jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland horay uga heesay wuxuu yiri والنيانكي ويرخي دويدا وليين اوغاتي معني وحان وحيين واوغان نصري مايان معني انغا مدخ نو صلاحي مايان ولا لا نهي ما هاد صلاه وحو هيلينايا ور ما هاد صلاه دبديسا قاوني دبديس مو نغا استورتو نغا ور دبديس مو نغا استورتو فرماجا بقلبودو ku kaadkaadinaaye Ethiopian baa jooge wartan galmudug muuso macnii wax ka qabto doo ragiya maxaa ka galay haduu lafta gareen xasuuqa baydhabo haduu adaan anaga is xasuuqdaadi maxaa ka galay adiga maxaa ka galay maad dhuusaayo Ali Jiko ma bajirteen maantana farmaajo cuntada uma dhadhamiyeen hadii Muqtaar Roobo habeenkii shabeellada hoose uu qalinka ku duugi lahaa in la idin laayo وانا الذين لين كري وعن كسو غبغبينيا وعن لياي ددك مايغا nimanka la soo kireystay sida balwaan oo kale marka qaar ay dhahayaan ay madax intay idin salaxaan lafta garan kursi dhiig ku fadhiya inuu dhiig ku fadhiya naga ogday macni lafta garan macni ma salaad macni wuxuu ma arkayse macni reerahooda waxay ka damqadaan qof kasto Soomaali u gurmadaan wariyaha way calanka yaan loo taagin waxaasi dad nooga dhigina waxaasi iyagoo markay iimaanayeen toddobaatameeyadii dhulkeena rag iyo rabbi doon baan ay dhigi jiray oo ma arkayse war dhulkooda xataa biyo aan laga aqoonin ninka iyo naagta isqaba dhulkooda markay isku daayaan ay isu tagaan wariyaha ku ceshanay mise waa ciidaysanaya dhigi jiray biyo xataa aan haysanin oo dhamaantood kaliya laga hayo oo macni dhagaxaanta kaliya biyahaasi macni gorofyada ku jira u geystay war kuwaas anaga dad nooga dhigina oo masagada cayriinka cuni jiray masaga cayriin oo la cuno ayagan ka baranay intay noo yimaadaan naaga iska socda rag iyo rabbi doon baan ayagan ka baranay ma fahmaysa marka isku soo wada duub bari anagu ay yaxmaniin anagu waxaanu nahay dad qowmiyad oo la yiraahdo jamhuuriyadda barakaysan ee Maryland qabiilna maniin maayo hadan ku sheegay maayo qabiil matiid qowmiyad baa tahay qowmiyadana waxa la yiraahdaa dad nooc walba laga helo mashiinguli waa anaga jambara waa anaga ma arkayse eeylo waa anaga macni eelay waa anaga weeye midgaan waa anaga madhibaan waa anaga tumaal waa anaga kankabaatala waa anaga nasabka waa anaga jileec waa anaga jareer waa anaga bulug waa anaga cadaan waa anaga waxaad arkaysaa qowmiyadan nin ma arkayse macni jareer ah oo tima adag nin la dhashay oo kooyin ku aabaa tima jilecsan baad arkaysaa gabar sidoo kale war anagu qowmiyad baan nahay sidoo kale anagu qabiil umani warka meesha hamaro warka meesha hamaro anagu qabiil manihin qowmiyad baan iyaga qabiil wax liita la yiraahdaa iyagu waa qabiil anagu qowmiyad Maryland la yiraahdaan ma fahmaysa marka isku soo wada duub yaan lagu sheegin iyaga qabiil qabiil hay sutumaan qabiil anagu qowmiyad baan dhaxdeena ma soo gali karaan nin ayax cunaayana aniga wuxuu i gargaara ma ogiba nin ayaxii ka badbaadi waayay oo dabada laga jaraale baalasha laga rifaale معني أنا معني سوء كالمين أي مجرناي كالمنا كمرة بندان معني دنيا أنك معني كسل جوري نعطى يعني دي شيء جاي ضد كمايجا وروحان كجوجنا دي جينات كجوجي كرتان صومالي حنيين فولا وريا حنيين كنا ولا هذا قشن كاسي ما تلوصاي ما الدمار أكله يوصل ماركيس أفك إيدين جنا إيدين سران وصل معني أفك إيدين مرسن يوصل جناه إذا سرن نعس كاس أكله عن شيء ذاتك ما يجا وحنو شيء وعن ليا يان ليدين أذيك سن على دان أكله مركي جبت ير إسكداني مكان أبدأ عسيس لفت جرن أنجا محكمة صارنا هنا أنجا ماركيس دمبي ونجا جلي لكن صدي ويه نين لكن صدي ويه معني برينا هدي سجى مختار روبو أي هشيان لصوص صار مدحوينا شرعي ومعني وضع الشقين لا يرادو وأرن قولي أنت كوريس كاري ماينو أنك الدنيا دعوذي سجود بني أنك كودجن إلهي هيك أنك تاجن إلهي استراسل برك أنك تاجن فرماج أنك باسبور كسو علني نين لك كان صدي أو معني فرماج ماشى وصادي وي أبدأ سيس لفته جرين ما أنت حتى جودين مركان قلنا معني لفته وكذا شيء إنه وقفت إسك دافع لفته وكذا شيء وحتى ما أركيسه مدحو يسوق لنا يا وعصرنا وأجنا لكن عدو معني مركب وصوّرره
oo Maryland oo dhan weerar uu ku yaab Cabdicasiis waa difaacina in this point inay naga hoos baxdo ma annagu waan isxalinayna walaalayaal waxaan leeyahay cali jika gale cali yare waxaan leeyahay haddaad nin raga tahay nin adiga kaa liita oo laba xaniin aan lahayn oo hal xaniin leh farmaajo la yiraahdo oo autism qaba badar uma adan kariyeen mana adan ka dhadhamiyeen marka Mukhtaar Robow ku salli baan ku leeyahay Mukhtaar Robow waa inaad ku sallisaa oo aad tiraahdaa ilaahay baa mahadle Mukhtaar Robow maanta nooleeyay hadduusan jiri lahayn maba aynan jirneen Mukhtaar Robow aan jirin waxay ka dhigan tahay ama ay ka dhignaan lahayd galmudug aan jiri lahayn xaqiiqada waa saas waxbaan idin sheegay aniga marka isku soo wada dub waa ka baxaya safarkayga soo afjarmi raba insha Allah taala walaalayaal waxaan idin sheegayaa ganaha hadday wax tarayaan mooryaantan waan iska qabanaynaa ari hadduu wax qabanayo dabadiisu oodan lahaa weeye galmudug Itoobiyaanka jooga rafaadka haysta sida iyaga loo saaran yahay ha iska soo fujiyaan annaga fujinna kama rabno mana u qayl la dhaansanayno mana u naadsanayno war haysan facan annaga qaran socon karaanaaye insha Allah taala maal iyo xoog iyo itaal intaba insha Allah taala barnaamijkeeni halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dadka shacabka inta wax iga tabanaysan oo shacab wax uma dhimin nuucu doona ahaado ha iska kay cafiyaanu la inta anigana icaysay ama wax iga tabanaysana macnii aan wax ka taban lahaana waa cafis shacab laakiin siyaasi isma dayn doono qadiyadeennana kama tanaazulayno Maryland iyada xukumaysa Soomaaliya ama way goosanaysaa sidaasaana noo balana maygana waa hooyay aabbo qoomiyad jirta weey insha Allah taala barnaamijkan halkaasi hay noogu soo ekaado walaalayaal nafta la isu dhiibaye la isma siine ma arkaysee camalkana ilaahay dartii u qabo muuqaalkan hadda aan isu jeedno muuqaalka xiga koor haddiina la kala qaato ballantanadu waxa weeye insha Allah taala camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eebe uu arkayaa saayidana badso safarku waa uu dheeryahay xamuulkan iska yaree sababta takaabada la fuuli doona mid adag weeyaan muuqaalka xiga koor haddiina la kala qaato ballantanadana waxa weeye inaan ku kulanna xawdkii nabi maxamed عليه الصلاة والسلام فردوسا فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله